بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كسور دوادا بلا أكاديمي وحلقة نتكسر تشينسا ترينين كاسو كصابسان conflict resolution skills وآخر فضحها لو مروح لنت خلافاتك status كاين ويجينا وضمادية status كبر لقاها الليو وضمادو انت بدنابا today maanta there are waxa jira 198 Safarian and legally equal status waxa jira maanta oo dunida ka jira in ka badan 198 wadan oo madax banaan oo legally equal status wadamo awood siman oo sharci leh but with different capacities laakiin kala duwanaanshaha awoodu regime structure kala duwanaanshaha maamulku and interests iyo danayaashu which interact on international arena kuwaasoo dhexgal sameeya marka laga hadlayo xiriirka dunida ama international arena waxa noqonaysaa fagaarayaasha dunida. There are major actors waxa jira jilayaal waaweyn jilayaashaas oo ka shaqeeya in a mediation dhexdhexaadinta and often find themselves la fahantoodu waxay isku arkaan having to mediate inay awood u leeyihiin inay dhexdhexaadiyaan a conflict khilaafka that may otherwise hadii kale treating their own interests khilaafku inuu halis gelinayo ama uu khatar gelinayo danahooga gaarka. marka inta badan marka laga hadlayo statuska waxa la yiraahdaa statusku waxay khilaafaadka dunida ama khilaafaadka statuska u dhaxeeya wadamada waxay u farageliyaan si khilaafkaasi hadii uu u socdo uu interestkooda ama own interestkooda dantooda gaarka aanay halis u noqon ama aanu halis u gelin. saadaradeed waxay statusku khasban yihiin inay sameeyaan mediation oo khilaafka u dhaxeeya laba wadan hal wadan wuxuu khasban yahay inuu heshiis labada wadan dhexdooda uu ka sameeyo heshiis. unlike other mediators si aan la mid ahayn dhexdhexaadiyaasha kale states wadamadu have considerable tangible resources waxay unlike other mediators si aan la mid ahayn dhexdhexaadiyaasha kale states wadamadu have waxay haystaan considerable tangible resources khayraad la taaban karo oo tixgelin leh means of mobilizing them kuwaasoo wax ku abaabuli karaan and leaders hogaamiyaashu with a mandate waxay haystaan awood to use these resources ay ku isticmaalaan khayraadka. marka laga hadlayo individualska si aan la mid ahayn dhexdhexaadiyaasha kale marka laga hadlayo statuska si aan la mid ahayn dhexdhexaadiyaasha kale ee noqonaya individualska iyo international organizations and institutionska statusku waxay haystaan tangible resources khayraad la taaban kara haystaan oo tixgelin leh khayraadkaas ay wax ku abaabuli karaan. sidoo kale hogaamiyaashu waxay leeyihiin mandate ama awooddaas ay ku isticmaali karaan khayraadkaas laakiin qolooyinka kale ma laha individualskana ma laha organizationska iyo institutionskuna ma laha laakiin kaliya waxa iska lawn statuska. waxaan eegaynaa qoladii saddexaad ee mediatorska ama mediatorska ee dhexdhexaadiyaasha noqonaysa. qolada saddexaad waxay noqonaysaa laba kooxood oo la israaciyo oo loo yaqaan institutions oo ah hay'ado and organizations ururo. The complexity of conflicts adkaanshaha khilaafaadku in such that states wadamadu can no longer meet lama kulmi karaan all the mediation requirements shuruudaha dhexdhexaadiyaasha nor facilitate a settlement fududaynta heshiiskuna ma fududaan karo no facilitate settlement sidoo kale lama fududayn karo heshiiska when conflicts are long marka ay khilaafaadku dheeraadaan. other bodies hay'ado kale and organizations iyo ururo kale are coming ayaa imanaya into offer say u dalbaan and deliver ay u keenaan different mediation services adeegyo dhexdhexaadin oo kuwa ka duwan. skills of mediation ayuu neegnaa. skills of mediation waxay ku noqonaysaa Somali xirfadda laga doonayo qofka dhexdhexaadiyaha
كشقينيال إنه حلية خلافات كود حيل وادنا from the moment هذا they enter into conflict marka la gala khilaafad mediators dhexdhexaadiyaashu strive waxay doonayaan to gain the trust inay helaan kalsoonida of the parties dhinacyada throughout the mediation dhexdhexaadinta dhexdeeda they work waxay u shaqeynayaan to build in a design and maintain inay joogteeyaan the parties dhinacyada waxay joogteeyaan wax weeyaan trust waa kalsoonida oo dhexdhexaadiyaashu haddii ay kalsooni haysan mash qaban karaan shaqada dhexdhexaadinta on the mediation process marka laga hadlayo hanaanka dhexdhexaadinta sources of trust qodobka koowaad wuxuu noqonayaa inay helaan kalsooni oo source of trust waxay noqonaysaa kalsoonidii dhinacyada lagu dhexdhexaadinayay ama dhinacyada dhexdooda laga shaqeynayay there are three basic sources of mediator there are waxa jira three basic sources saddex ilood oo asaasiya of the mediator trust oo laga helo kalsoonida dhexdhexaadiyaha ta koowaad if a mediating organization haddii ururka dhexdhexaadinta sameynaya has a good reputation uu leeyahay sumcad wanaagsan a mediator dhexdhexaadiyuhu representing wuxuu wakiil ka noqon karaa uu matali karaa that organization ururkaas can expect in laga filan karo a certain level of trust inuu leeyahay heer kalsooniya from the disputing parties heerkan ay ku qanci karaan dhinacyadiisa hayay ee muransanaa even before حتى كهر interacting with them انت انا حتى سو دخغلينبا حتى دودنا هوربا يانو سو دخغلين لكن عده هشيسكا ودا hadii ay sumcad ku leedahay heshiisiinta labada dhinacba waxay keeni karaan kalsooni taasina waxay meesha ka saari kartaa khilaafka waxayna keenaysaa aaminaad islamarkaas aan ugu dambeeyay any comment and questions wixii talooyina iyo wixii su'aala waynu iska heli karnaa insha Allah oo soo wada xiriir karnaa thank you for your attention aad baad u mahadsantiin dareenka aan nasiiseen iyo dhageysiga fiican halkaas ay nagu joogaysaa kulay wixii ilaahay ma hadlay halkaas ay nagu joogaysaa alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina muhammad sallallahu alayhi wasallam